Gudoomiyaha hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland Muddane Muuse Xasan X-Yuusuf waxa uu digniin u diray shirkadaha diyaaradaha ee dalka soo galiya dawooyin aan sharci ahayn. Muddane Muuse Xasan X-Yuusuf ayaa shirkadaha diyaaradaha ee Somaliland soo gala waxa uu uga digay inay isku dayaan inay dalka keenaan dawooyin bilaa sharci ah. Muddane Muuse Xasan X-Yuusuf ayaa hadalkani ka jeediyay maruu ka hadlayay kulan ay wada qaateen ururka ay ku midoobeen ganacsatada dawooyinka soo dejisay ee diwa. Shirkadaha diyaaradaha ee wadanka yimaadeen waxaan inaanay wadanka keenin dawo ganacsi oo bilaa sharci ah shirkadii aanu ku aragno ee aanu u dignay caadaysatay talaabo sharci aanu ka qaadanay hadii la ka dhigo mar walba muhiimada koobaad waxaynu siinaynaa bulshada iyo caafimaadka bulshada inaynu ilaalino dawaduna waynu ogsoonahay qofka dawada cunaya waa qof markiisii horeba leh caafimaad darro qofkii caafimaad darrada qabay inaynu ugu sii darno ama siino dawo aan tayadeeda la hubin ama aynaan nidaamkii ama sifadii ay wadan ku soo gashay aynaa hubin waxa weeye waa iyaduna waa waxa weeye khatarteeda leedahay. Luqmaan Maxamed Farax Bulsha TV.